السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن مركلي فيديو رسم جنال كان نقول ساعتين ومسين جنال نقول مسين سودواد مال وناكسن هبي وناكسن صباح وناكسن كل شيء وناكسن أصحاب السودواد أصحاب ترجع سكر سودواد دمتي سودواد دمتي بتشالها إن شاء الله مركلي فيديو جنال كذا قصتين بدي سبسكرايب لايك شير كم سحبين ولا قاعد مسنتين دو سبسكرايب كل سعر إنه لايك كره إنه شير كره لما جا مسنتين إن شاء الله مركلي فيديو برنامج كنا إلى اختلا وسبسوا الله عنا وسبسوا نقول ناكسن صحاب كذا أصحابته عسوي بصور بيرت سودواد أصحابته سكر سودواد إن شاء الله ما نحن وذا برنامج إلى التالي إن هدو الله أدنى بالله إن يحب القدر نيسو جارتي يحب الله ونسواك سلامة يبقى خاذي المقعي وهيبة وحان كنا لهاي داداب أوكي وحان كنا لها بيتر داداب waxaan rabay Soomaali weyn inaad tala iga siisaan laba arrimood oo ay haysataa waliba labada arrimoodna midba midka kale ay ka darabtaa waxaan ku soo koray gobolka Hiiraan waxaan ku dhashay gobolka Hiiraan waxaan ku guursaday isla gobolka Hiiraan magaaladiisa Beledweyne waxaan ku guursaday Beledweyne wiil aan muddo wada soconay waliba aan maxaatood inkastoo aan lababa heeb kala nahay laakiin haddana muddo ayaan wada soconay waxa dhacday wiilka inaan markaan muddo sanad iyo 8 bilood markaan wada soconay inaan isguursanay waliba reerkay uu iga soo doontay si sharaf iyo qiimo leh saas ayaan la igu guuriyay waxaan degay Beledweyne waxaan ku dhalay 3 cunug ilaa ay cunug uurkiis afraad anigoo leh Beledweyne ka baxay waxa kaliya igu soo Beledweyne inaan ka baxaya waxa dhacday in markii aniga la qabay 3 sanadood aabahay lagu dilay Beledweyne meel tuulaha u dhow aabahay lagu dilay waliba loo dilay aana qabiil ma halkaas oo lagaga dhacayna geel uu lahay aad u fara badnaa waxa dhacday aabahay reerka dilay in ay ahaayeen ninka ay qaba reerkiisa laakiin aniga waxba igama gelin because waxa dhahay gabar la qabo awlaadeeda korsadeys xaajigeedana la joogto aabahayna dhowr mar ayuu igala dardaarmay in aan ilmahayga korsado xaajigeygana aan adeeco waxa dhacday bay tiri markii aabahay la dilay maalintii la dilay odagayga uusan joogin wuu maqnaa waliba wuxuu jira safar sidoo ii sheegay wuxuu ku aaday Itoobiya uu safar ku aaday asigoo dhahay waxaan maqnaanay 2 isbuuc waxaan aadayaa Itoobiya aabahay baa la dilay waan baxay waxaan ka qayb galay duugti aabahay tacsida aabahay markii duugtiisa iyo wixii soo gabagabooday anigana aan ahay qof aad u xaamilo waliba ku jirta bishii 7 ayaa waxa dhacday inaan ku soo laabtay gurigii markii aan guriga ku soo laabtay asigana yimid subaxii aan imaado duhradeeda ayuu yimid walibana asigoo qof iska faraxsan oo noo wada qudaar iyo waxaas Itoobiya ka keenay sida ayaan ku wada joognay waxa dhacday in markaan bisha 9aad galay wuxuu qof balwad leh waliba balwadaha qarqarsado laakiin habeenkaas wax ayaa soo socday waxa soo ahay in uu cabay khamri waliba markuu khamriga soo cabay ku soo cabay xaafada kale dhalinyaro ee saaxiib yihiin khamriga dhanka Itoobiya laga keenay khamrigii buu soo cabay khamrigii markuu soo cabay gurigeena asigoo dhacdhacay oo ku jira xaalada kale aniga sida ayaan ku soo xaray guriga keenay laakiin markii ay wuxuu bilaabay in uu hadlo waayo xaq far badan ayaa dilaacay wuu hadlay waliba waxyaabo uu sheegay waxba kama aanan garanin laakiin markii ugu dambeysay hadalada uu sheegay waxay noqdeen hadallo la yaab leh oo aan ka argagaxay bay noqdeen waxaan bilaabay markuu bilaabay inuu arrimo qusay familiga inuu ka hadlo in aan soo qaato teleefankeyga waliba aan wax kasta ka recording gareeyo inkastoo uu yahay qof cabsan laakiin haddana uma aanan joojin waxaan bilaabay in wax kasta ka recording gareeyo markiiba wuxuu sheegay in uu yahay qofka dilay aabahay walibana uu ka dhacay ilaa iyo 20 neef oo geel walibana uu uga dhacay reerkaasi uu ka dhashay waayo reerkaasi uu ka dhashay ayaa waxa laga dilay nin hore ayaa laga dilay asigana wuxuu ugu aaray aabahay qofka aabahay dilan waa asiga qofka geel ka watan waa asiga aad baan u qaracma markii hadalkaas maqlay laakiin wax kasto oo recording galaysayn habeenkii ma aanan seexan guriga dhan iyo dhulka cariir ila noqdeen waagi markuu bariyay baan waxaan sameeyay beetri waxaan dhahay beetri codkaan dhageyso codka markuu dhageyso waxaan ku uli beetri waxaan xal aad sheegaysaa maxaa ka runa maxaa ka been markaas wuxuu ugu yiri beetri wax kasto aad maqlayso wax xaqiiqo kuma jirin wax been wax kasto aan ku daldalmay markaan wax soo cabayno waa wax reality
waayo aabaha aniga ayaa dilo. waxaan u dilo waxay tahay reerkeena ayaa maalin dhexdaas waxaa laga dila dhowr qofood, aabahan waxaan ugu aaraya reerkeyga. waxaan ku dhahay bay tiri soo ma ogid aabahay inuu yahay qofka aniga i dhalay, sideed ku damacday inaad aabahay dishid, waaba taqaanaaye xitaa haddii aadan aqoon lahayn weliga aabahaadan arki lahayn waa gooni, laakiin aabahay i kaa siiyey igu kaa mehriyey welibana gurigeyga imaan jir oo taqaani sababtaad ku disho maxay tahay, waxba igama aysan gelin, xitaa haddii aad adiga hadashin waan ku dilaya ee aamus meeshaada joog, shaqaan aadaya duhurka ayaan imaanaya buu idhahay bay tiri gabadhii. isla markii waxaan bilaabay bay tiri in argagaxo, aniga dhanba noloshii iyo wixii dhanba cariiri igu soo noqday, ma aqaana meel aan joogo, xaaladeedu siday ahayd waan garan waayey. markiiba waxaan bilaabay bay tiri waxaan haystay bay tiri lacago, waxaan ku jiray bay tiri ayuuto, lacago fara badanna waan haystay. markiiba waxaan u qalab qaatay bay tiri baabuur markaas baxaya oo Itoobiya dhinaceed u socday, welibana ay ka dhineed 2 qofood, in aniga iyo ilmaheygii aan raacnay, welibana ilmahay aniga aan korka saartay, hal cunugna aan meel fadhiisiyey, kuwa kalena korka la saarsaaray. saas aniga iyo isla 3deedii cunugii aniga aan kaga baxnay beledweyne. waxaan u qalab qaatay bay tiri inaan aado dhanka Itoobiya, weliba aan ku gudbay xuduudda. waxaan tagay bay tiri Itoobiya, waxaan galay bay tiri xerihii qaxootigaan galay, meeshaas ayaan ku dhalay ilmihii. markii aan galay 4 casho ma joogin, isla markiiba fooshii ay qabatay waan dhalay. markii aan dhalay kadib baan waxaan la soo hadlay bay tiri hooyaday oo joogta beledweyne miyigeeda, waxaan ku iri bay tiri hooy saa iyo sidaa baa jirta, adiga waa inaad gaari soo raacdo oo igu timaado Itoobiya, adiga iyo 2 wiil oo yaryar ay la dhalatay, waayo kuwii kale ila dhashay dhabba waxay jireen Yurub. hooyada isla markiiba waxay bilowday bay tiri in ilmihii ayadoon la dareemin inay soo wado, xoolihiina ay kaga soo tagto adeeryaashay. xoolo badan ma aysan ahayn, ari buu ahaa, geeli waa la dhacay, arigiina ay kaga soo tagto adeeryaashay. isla markiiba waxaan u qalab qaadanay bay tiri inaan iska degno, waxay usoo qalab qaateen bay tiri inaan wada degno Itoobiya. sida ayaan ku wada degnay. maalin maalmaha kamid ma garanay, taleefankeyga wax soo siiyey buu isoo wacay, wuxuu igu yiri haddii aadan ilmaha siinin waan ogaa inaan xeryaha qaxootiga degan tahay, ogowna inaan xeryaha qaxootiga kugu gubi doono, aanan ku dili doono. Soomaali weynay waxaan idinka rabaa inaad igala talisaan, ninka sidaa ii xumeeyey ma waxaan ka sugaa inuu i furo, ma xarig ba igu xiran, nin aabahay dilay miyay diintu qabtaa inaan marwadiisa sii ahaado, mase idinla tahay in qof aabahay dilo in aniga u dhaafayo aan la sii noolaan karo. biliis iina soo ducay inuu ilaahay aabahay u naxariisto. walaashay macaan ilaah aabaha u naxariisto. tala ahaan waxaan kusii lahay maadaama waxay tahay arrintan arrin diin quseeyo, soo markeen insha Allah waxaan rajeynayaa culimada diinta la kaashitid. ani ahaantayda ma qabo inaad ku laabatid, because qof aabaha nolosha dhaafiyey tomorrow adina kuma daahay. soo marka waxaan ku dhilahay noqo qof adag oo ilmaheeda korsata, oo nin iyo waxaas daman afaariis aanan gelin. insha Allah naxariijana Soomaali weyn inay ku soo jawaabi doona qaybta community-ga jawaabaha dhan aad ka daawan doontid. insha Allah biliis uu duceey aabahaas dhintay, gabadhaas masaakiinta caruurteeda korsanaysan u duceeye. dhammaantiin waxaa jira khayr barako, barnaamijka hala share gareeyo, hala like gareeyo. insha Allah gabadhaasna qaybta community-ga ha loogu soo jawaabo dhammaantiin.